maanta waxa joogood u jeedaan waxa jooga dhalinyar Soomaali oo Ilaahayna tusa ma ninba ma naagba oo baraha bulshada ka buuxa hadda maanta oo ducaad ah oo qayliyaya maanta iyo horteeda jooga weey waa Soomaali waa kuwa halkan ka tagay weey Soomaaliya ka baxeen kuwa ku dhashay maxaad u maleynaysan oo afka Soomaaliga ilooba say noqon hijradu marka luqada waxay ku tahay waa safar haddaba maanta dhalinyaradan galaysa Yurub iyo dadkan badan ee galayo Soomaalida iyo Afrikanka iyo Carabtaba kamida muhaajiriin baa la yiraahdaa marka kolka dhinaca la yiraahdo hijradu waa ku suuroobi kartaa luqawiyan bay ku suuroobi ama sharciyan waxa weeye qof baxsanaya oo diinkiisa la baxsanaya oo ka tagay dhul gaaleed oo dhan islaam u baxsanaya baa la yiraahdaa inama na'malu binniyat wa inama likulli imrin ma nawaa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إلى حديث كما عني ساعة فقد كان يوروب يقول كاكلا ياي وحوي هجرة الدنيا بكجرانيو وهجرة اللغوي قاعد أما هجرة الصحة هيد ما سيدا ترتيب هجرته إلى قيام الساعة ويجوغيسا في مكة باقوضي بس أما هجروجي كله ويجوغيا وفي الدين كيس لا بحصله وقائم وجوكتو كاسي سوكر ميس إلهي وحده سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء سوكر ميس في كتاب مبين أحصيناه في كتاب مبين بل أيضا نقيس إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ريبني سلامها وحين هذين يا رسول الله حافظوا ذا فويد موقت ونسوق قورينا وحنو يمننا مسجد كأكتيس النبي صلى الله عليه وسلم وحكوري بني سلامة دياركم بني سلامة تكتب آثاركم كوريه ندقنا هذا رات كالي قوريه مساجد أبو سعودان رات كأبو وناكسن وآيات وأشياء استقرادات هو بدنيهم راد وحي من كان لمطو مسجد كتكتو إن علمي كتكتو عرور في عناد كتكتو إن كتكتو محان كل هذا صدقة جارية رادت كهو وين وكتجس عرور طاو بطر عرور طاو بطر نكم مركا محاضر ملاين إسا عرور تيسي انتو رارو قال دحقية وأجل انت وتماتو دينتو وعرورتي مركب دمبي عرورتا سقالوي ما يعني عرورتا إلى أن كفار نقضان أما ماديين نقضان يا الله يستا عرورتاس نكي جاي بارت الله يستا أمام الله ولو قبسن وآثار تادي سيدا درتيت هجرة هل كان لبو شيء هجرة دماتي ما هجرة وحي كدماتي مكة المكرمة أما هجرة قالة قديهيغا ويلقى سو هجرة أوينك جعل ما أنت يوروب كي أستراليا يميلها جعل oo maxaan ku waxoogaa ga yaro loo soo tuurayo oo caydha la yiraahdo ku dhagan iyo dhaladaalka ay mad kulkii hadda halkan ka hadlay waxay yiraahdeen hadiiskii bay soo dishay nabiga sallallahu alayhi wasallam ana bari'un min kulli muslimin yuqimu ala dhahri al-mushrikin waxaan bari ka ahay qof kasta oo muslima oo gaala ku dhex nool waxay ka soo reebeen qofka aan diinkiisa markaa u baqaynin waa iska joogaya ama qofka diinkiisa u baqaya oo soo guraaw dadkaas waxay ku fakan karaan kaliya inay gaalada intay islaamiyaan ay gaalada gacanta ku dhigaan inay wadankii u bedelaan marka islaam ma samayn karaan arrintan ma dhici karto caruurtii baa laga guranayaa iska dhaawac kale caruurtii baa xoog laga qaadaya ilmihii baa maaragtay leeyahay ilmihii baad xumaysay waaba lala wareegayaaba iska dhaafac kasta waxna waa saliibiyiin inagu ay duulimaad lagu yihiin adigana gacantaad ka gashay kanaystii baad gashay khatartu marka waa weyn tahay aan waxa odhan lahaa dadka dibadda jooga war ilaahay baa waxay nisiiyeen ajashana ilaahay baa iyo anagu wadankii waa ku nool lahay caruurta soo celiya haweenkana waxaan leeyahay qabriga munkar iyo nakiir suga wuxuu in yiraahdaan soo garanmays waa la inay qabsan qabriga waa la inuu qabsan ragga iyaga ka adag iyagana meesha ku hayo weey
wax kale ma raadinayaan dhalaalkaasay raadinayaan caruurtiina way gaaloobi waxaan aqaanaa Soomaali nimanka la yiraahdo waxaan u leeyahay aqoon badan ma sii noolaadaan diintoodu ma sii joogto turkaana meesha la yiraahdo nimankii qabaa'ishan kamid ahaa Soomaalida badanka wooyi bari iyo waqooyi galbeed iyo dad isu tagay bay ahaayeen waxay ka xeeyeen geel halkaasay tageen masaaxiif bay siteen 100 sano horteed weeye waa taariikh qoran weeye masaaxiiftii buur bay dhigeen kuwaasi muslimiin bay ahaayeen kuwii ka dambeeyay hadda waa mushrikiin meeshii buurtii bay caabudaan yani geerina waa wataan soo ma arkisaan dadka Soomaalidii dad si noolaan kara ma dadka Soomaalidii waa mil wax weey waa cusbo biyo lagu dhax tuuray dadka noolaan kara ma taqaanaan waa yuhuud diintooda baatilka ah loogu tagi maayo waxa kale ka agdhow nimankii baaniyaalada loo oran jiro Soomaali joogi jiray gabdhahoogana nooma guurin jirin gabdhaheena ma guursan jirin xarig way soodeen caruurta way kaxaynayeen waxay geyn jireen Hindiya iyo meelay ka yimaadeen bay geynayeen waxa kale oo xoogaa ka agdhow Turkigu uu sii noolaan karaa ama Soomaalidu ma noolaan karto maanta waxa joogoodu jeedaan waxa jooga dhalinyar Soomaali oo Ilaahayna tusaa ma nimba ma naagba oo baraha bulshada ka buuxa hadda maanta oo ducaad ah oo qayliyaya maanta iyo horteeda joogo weey waa Soomaali waa kuwa halkan ka tagay weey Soomaaliya ka baxeen kuwa ku dhashay maxaad u maleynaysan oo afka Soomaaliga ilooba say noqon hijradu markaa waa qaa'im waa joogto caruurta laga soo hijroodo wadankaas Allahumma inta ducaada ah anu warkama hayo nimanka ducaada ah wadanka laga soo hijroodo haweenka laga soo celiyo caruurta laga soo celiyo waa qofkii man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir sallallahu ala muhammad wa alihi